shampoo company waxa waaye company shampoogan soo saaro oo la yiraahdo Ilays kana howlgala Jubbaland guud ahaan gaar ahaan degmada Kismaayo xaruntiisa ugu weyn ku leh la rabo higsigiisana uu yahay xarumaha inuu ku lahaado xarumo gobolka Jubbada Hoose dhammaan iyo gobolada dalka Ilays shampoo company waxa hal abuurkaas lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro reer Jubbaland haddana dhalinyaro reer Kismaayo ka kooban 10 dhalinyaro ah hal abuurka iyaga lahaa soo saarkana hadda iyaga iska leh Ilays shampoo waxa lagu soo saaraa dalka gudihiisa Kismaayo lagu soo saaraa shaambadan aad aragtid agabyada aan ka sameeyno iyo kiimikooyinka waxaan ka keenaa dalka Kenya markii laga reebo laba shay oo ah biyaheena caadiga ah ee aan isticmaalnay macaanka ah iyo cusbada Ilays shampoo company waa company hadda si dhab ah ugu hirgalay gobolka Jubbada Hoose degmadiisa Kismaayo suuqyada Kismaayo maanta si toos ah ula qabsatay Ilays waa Ilays soo baxay baahideeda awal waxay tahay dalka aad ay baahi weyn uga jirtay saanka suuqa oo aan sameeynay waxaan ku guuleysanay inaan si dhow aan u helno baahida dhabta ah ee ka jirto shaambadan waxa laga keeni jiray dalka Kenya waxa la imaan jiray ganacsato maantana da'yar Soomaaliyeed oo iyaga isu tastay abuuray ganacsigan bilaabay iyaga yaa dalka keenay kuna faraxsan resource dalkooda maxaa la yiraahdaa ka soo baxa kuna qanacsan hal abuurkooda inuu dhaqan galay kuna qanacsan service si dhow inay u gaarsiiyaan bulshadooda Ilays shampoo waxa garab naga siiyay JCCI rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland waa ugu mahad celineynaa gudoomiyaheeda iyo dhammaan xubnaheeda waxa kale oo garab naga siiyay oo dhiirigelin ah ARC boqolkiiba 80 anaga iska lahayn bilowgeedii iyo dhamaadkeedii iyo maxay ahayd hal abuurkeediba waxa kale oo aan u mahad celineynaa maamulka Jubbaland wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland maamulka degmada Kismaayo kan gobolka Jubbada Hoose wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dhammaan intaba waa nagu dhiirigeliyeen markii aan la wadaagnay fikirkan iyo intaan wax soo gaarsiinay hana laga caawiyo waa mahadsantihiin